waxbarashadu waa xuquuq aasaasi ah oo qof walba oo caruurteenna ah inay helaan maanta inaan kulligan markhaati ka nahay dahfurkaan aan ku dahfurayno inay wasaaradda waxbarashada ay dib ula soo noqoto 24 iskuul iyo macallimiin badan iyo arday badan 27 sano kadib burburkii markuu dhacay waana markii ugu horeysay dhinaca kobcinta dhaqaalaha waxaan ilaahay mahadiisa inay dawladdu suurta gelisay in dakhliga dawladdu oo ahaa 4.6% sanadkii tagay sanadkan la gaarsiiyay 7.2 taasi waxay sheegaysaa in dakhliga guud oo uu kor u kacay 3.4%. kor u kaca dhaqaale ee aan sanadkan gaarnay waxaa sabab u ahaa waxaan hagaajinay nidaamka hufnaanta maaliyadda oo fursad noo siisay in Soomaaliya la aamino mar kale oo dib loogu xiro hay-adaha dhaqaalaha adduunka oo aan macaamil wanaagsan la yeelano booqashada rasmiga ah ee madaxweynaha waddanka Eritrea Isaias Afwerki wafdiga uu hogaaminayo ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho ayaa muujinaysa horumarka uu sameynayo xiriirka cusub ee mar kale labada dal dhex maray waxaan soo xirnay albaabkii u dambeeyay ee isfaham la'aanta dalalka gobolka Geeska Afrika waxaan u gudbaynaa marxalad khilaaf la'aan ah aan aadeyno iskaashi iyo wax wada qabsi gobolka Geeska Afrika waxa soo noqday سمعتي يا شرفتي أما شرفكي أي صومالي كلها هي عالم. Nairobi, Mogadishu for radio check. How do you read me? 135. hawadeenna maanta gacanteena ku jirtaa waxay tan qayb ka tahay dadaalka ay dawladdan ay waday haddana maanta kulligan aan markhaati ka nahay maalintan taariikhiga ah dal walba dadkiisa dhista annagana dalkeena waa kan dal kale ma lihin annagaana dhisanayna insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo saas darteed waxaan rabaa qof walba oo Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba inaan u istaagno inaan dalkeena dib u soo dhisanno oo aan tusno caalamka Soomaali waxay ahaan jirtay iyo dalkan sidoo u dhisnaa si ka wanaagsan inaan u dhisano hadduu Ilaahay yiraahdo dawladda Imaaraadka Carabta ayaa cambaaraysay falkii diyaarad rayd ah oo toddobaadkan iyadoo lacag sida mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee Muqdisho Villa Soomaaliya oo Nicholas Haysom wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay uu sheegtay in uusan Soomaaliya ku dhex shaqayn karin waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xad gudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed